بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا خيرتنا داونيسا مeel kasto aad joogtaan waa barnaamij gaar ah maanto maalin axad ah bisha October 9keedii ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa lagu qabtay kulan markaas loogu barardiiqayay arintii ka dhacday bishan aynu ku jirna afarteedii magaalada Muqdisho halkaas ay ku dhinteen in ka badan 100 qof qarax ay geysteen kooxda al-shabaab arintan oo ka dhacday maqaayada weyn ee Safari ee ku taala koonfurta magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ayaa waxa isugu yimid dad Soomaaliyeed oo badan oo arintaasi markaas ka dhiidiyay in aad uga xun yihiin xafladan ama kulankan ayaa waxa ka hadlay culimo u diin dhalinyaro iyo markaasi hogaamiyaasha dadka Soomaalida ay ku dhaqan gobolka Minnesota dadkii ka hadlayna sidan ayay hadalkoodii u dhigeen kulanka inta iskugu timid iyo inta soo qaban qaabisay waa salaamaya ma raba inaan aad ugu sii dheeraado oo wax kala ka hadlo waxaan u tacsiyeynayaa dadkii bila sabab la'aanta loo laayay oo qaasatan dadkan u tacsiyeynayaa waa haweenka Soomaaliyeed baan u tacsiyeynayaa nimanka annaga wiilasha la laayay annaga dhalnay annaga soo korinay agoon baan ku soo korinay waagi anigu aan dhalmo bilaabay hadda inta ka dhaxayso waxba la leeynahay aniga Faadmo hadda meesha taagan laba anug baan lahaa markay dawladda dhacday kuwii ku dhashay hadda kii wiilkayga carruurteeda ugu yar la eka waa lagu dilaa la igu yiri meesha naagta afarta carruurta ka dhimatayna waa aqoon dheer baan u leeyahay waxa weeye waxaan u tacsiyeynayaa haweenka Soomaaliyeed ee masiibada ku habsatay dadka Ilaahay dad baa u dhasho rag baa guursado dawlad bay noqdaan meel bay degaan even annaga wadaad baa sheegay waxa naga dhalayba ma naqaanaba casiibaa nagu dhacday haweenka Soomaaliyeed baan yaan u tacsiyeynayaa sabar iyo iimaan qeyr qaba Allah ka siiyo wiilashood iyo gabdhahood ka dhintay waddankanaagaas aafadu ku dhacday na Ilaahay aafadaha ka saaro markaan qabyaalad u diriraynay abti iyo adeer baa la isu dhaafay wadaado maxaa dhaafi mid walba qaalaaba un baad leedahay raggi la laayay face to face baan u arkanin dhahaya qawaariij baan leeyna sheekhna sheeganayo ninka wareysanayo uu leeyahay ninkan sheekh hebel baa la dhahaa تحققنا ما لو قحوة ما نغنيه وابا كنتم ترابا واحد سموك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا أولا أكتهين وحكا دعاي وحان لقياسي كرين صوماليا الشباب وحي فوليين فالكي وحو ماي كدعاي صوماليا ما أهان ولالكي وكجري لكن ويكا بدانتهاي داوع صومالي دا جاري وحي هوري كدعاي دان الله بنا شامو قساره جاري مت كانوا وسدح الله وحنا سئات وكل وعنبارين يا فلك فوشحن كدعي ومروج أن لا اللوبي كرين كريبي صومالي ده أردن أنا ولالك والشخصي ديك بو إلو ذاك وان ككلوا لهاي أنت كله لكن وحن كصبري ما دام بقول أرضية أو لهيد مستقبل أو بحي ودنك معمول لها بري أما مركي سؤال لابتان عقل كدوان كوا ملاحظة كوا إسقرحين هاي لا إيمان لهاي وبدل لهاي أيامش اللجوعي مد سدحات وحن كعد سنة يا صومالي ده سيدا الشيخ حسن جامعي وشيعي إني مدوبان وأيكور تجان فلالكن نوع عنو كلاء حتى أنا مريكن بندقنا هاي حدي ما أنت قف عن وحكو أرجنا ووضع عررنا وشيجنا وحلنا أو نكاس ما أنت وحبوك قريب الربا وحوي للربا حدي صومالي أن الله وإنه فكر كنا وكدونا يعني وكان حاجة ترى إن Soomaalida waxaan jeclaan lahaa inay midoobaan oo aan ka codsanaya oo ay ka hortagaan falalka noocan oo kala ah kana soo horjeestaan fikradaha qaldan ee al-shabaab wadaan oo aanan ku saleysnayn diin iyo aqli midnaba absolutely aanan meel ay ka soo gasho diin aan jirin at the same time qof fikir yani wax walba waa common sense حتى دادن دين تصفي عن وأقونين والدريمي سقف إسكدل وحمة تريس مدة وجود كحكتنا وحن تعسو الدراية دتكي وحيالا ذا جارتي أردن ويسوجران هويين خاصة
hooyada afarta cunug ku weysay meesha oo filaysay wiilasheeda inay wax u soo bartaan u soo laabtaan canjeeradii ay samaynaysay ay ka baxdo oo nolol fiican ay geliyaan wiilasheeda intii ay soo marsiisay mid ka fiican ay ka sugaysay ma dhicin laakiin afartii ku weysay waa xanuun aad u kulul arrintan aniga si gooni bay ii taabanaysaa walaalkay baa meesha ku dhintay laakiin waxaana way ka weyn yihiin waxa sida aad u maleynaysaan haddaan idinkaga sheekeeyo walaalkay musbaar baa madaxa ka galay jirkiisa intiisa kale wuu fiicnaa xanqariifo yar ma lahayn xaqtin yar ma lahayn but at the same time lafihii oo dhanaa burburay marka waxa ay damacsanaayeen iyo waxa ay isticmaaleen weyninka iyo awoodda ay leedahay meeshaas markaa ka fiirisid waa wax loogu talagalay in Soomaaliya dhan lagu baabi'iyo wax loogu talagalay in Soomaaliya dhan lagu baabi'iyo awoodda intaas la eg impactiga gaarsiiyay in lafo ay burburaan qofkiina dhaawac gaarin anigu ma aqaan qalabkaas meeshuu ka yimiday iyo sidii lagu soo rakibay iyo waqtiga ay geliyeen waxaan qiyaasayaa inay tahay bilayaal ama sanado hadday ugu yartahay waxaan rajaynayaa ama ilaahay aan ka codsanayaa in aynan dad kale waxaas oo kale ku dhicin waxyaabaha socdo waa wax lagu fiirsanayo ama ardayda aniga ma aqaana meesha ka timaaday waxaan shaamow waa dhaqaatiir waa dadkii waddanka wax u tiri lahay waa dadkii loo baahnay maadaama maanta Soomaalida 50% ay xanuunsan yihiin another 50%na ay dhaawac yihiin way dhamaadeen awal ayaan dhaqaatiir fara badan aanan lahayn Soomaali haddaan nahay haddana waa intii wax soo baran lahayd oo ka duwanaan lahayd inta kale marka waxaan ilaahay ka codsanayaa ka baryayaa in aanan wax kaleento oo murugo ku reeba Soomaalida inteeda kale aynan mar kale dhicin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yaliqu bi jalalati 'azamatihi radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هذا كي وحنكون بالعبنا يا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى تعسيو قاسة وحن أدرايا مركو هراء الدوين هردن مركو حكته مسلمين تردن marka sii xigta Soomaali weyn meel kasto ay joogto haddana si gooni ah qoysaska ay ka dhinteen dadkii la dulmiyay ee la gumaaday iyagana waxaan leeyahay ama dhammaan muslimiinta oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabar iyo iimaan Ilaahay naga siiyo intii naga dhimatay waa jirkeeni waa dadkeeni waa caruurteeni waa walaalaheeni waa gabdhaheeni waxaan leenahay إله نحرستي جنا إله كورابي إله قبرك أواسعي إله قبرك أنوري إله سبحانه وتعالى أنتي كدم بيس أو أنا جاه إله قداش وده هنا في النين إله جعنتي دشي أو جعن قردران إله ومد أو دن كقبو إله سبحانه وتعالى كوي دلي شرط هذا إله إيجا كعلي إيجا أنت كدم بيس أو وذا شقينيسو oo waxaan soo qorsheeyay qorshahooda sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanku ku yiri wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli qorshaha xun ee khaldan ee shaytaanka ah wuxuu ugu dambeyntii u dhibaya u burburinaya cidii ka dambeysay Ilaahu iyaga ku celi Allahumma aamin ayat quraan laba ayadna Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraanku waa wada garanaysaan markii hadayta waxaan dhahay dadweynaha oo dhan u tacsiinaya qof kasto damiir leh oo bini aadan ah oo human being ah wixii Soomaali ka dhacay waxaan u jinaysaa tacsiin loo diray weeyaan sababtoo Ilaahay quraanku wuxuu ku dhahayaa annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin فكأنما قتل الناس جميعا قفك نف دله
oo innocent ah oo waxba aan galabsan oo miskiin bi aanan gelin wuxuu la mid yahay isaga oo laayay ummadda adduunka oo dhan waa kow qofkii naf miskiina oo aan waxba galabsan dila wuxuu la mid yahay isagoo adduun weynaha oo dhan wax naf ah oo jirta oo laayay ilaaha quraan ku sheegayo qofkii hal naf safe gareeyay wuxuu la mid yahay isagoo ummadda oo dhan safe gareeyay waa kow ficilka al-shabaab marka hore waa cambaaraynaya waana cambaaraynaynaa ka muslimiin ahaan ka culamo ahaan reer Minnesota ahaan in ficilka ay sameeyeen inuu yahay diin ahaan dambi waxaana daliil u ah aayadda quraanka ilaahay uu dhahayo waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannama khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وآيات قرآن أفر أي متيسر عن الله سبحانه وتعالى قف مسلم سكسها أدله كسويان إن بهال جاري إن لجسوا بوحيو وحيالها قرحة دلنا يرى مسكين أو وحبرشة سد كل ما يستطيع وحنا كمد هو يسوع مالد هذا ما قشيء أو ما أنت واجب إنت هل كان عاون وجر منه أفر الموت كليلات أفر ويل أبوه وحود أنت تضبية توانسنا كهر عن جاري وحكسو كريسي وحياله يوين كأنا خير كبدن الله دم بيهرنا في نجوسه كرشين هو يدا سي أفر تدويل من ذاك ما صار نقون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون من ذاك ما صار نقون روح الدلي أو سو أبابو لي أو كسو شقيي سيدين وقلت المامي كنا ذاتك نوع سوكلا إنه هيمن بين أيهن إسكبت داي وحكله وعن بارينا كلية معهن وليجي كمد ديرن أما كمد دقدقين روح مسلم إن إنكاره أنا وحنا آمن سنة هل كان الشباب إن كو إنكارنا أو الضحضان آمين إلهو ومداس مساكين تأه أو صوت نباتوتي كن سجال بقول سجاشن يكو إلا هذا إلهو كواسي أو ظالمين تأه أو ضدك بابيي أو أرضي أو بحبريتو مستقبلك إلهو نجقبه إلهو يا ناصر المظلومين فانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم دمرهم تدبيرا إلهو بربر يا رب العالمين اللهم فتت يا رب العالمين وفرق بينهم يا أرحم الراحمين اللهم انصر الصومالين إلهو الصومالين قدها جرت إلهو أقرقار إلهو كالماء إلهو قلوب تدسكوكان إلهو مذي إلهو أسمى دولة عيدا وأهدد كذا أو يستفاعيو أو يستعل أو يسكو إماريو يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قبل أو ذجبيه قرست ذا مانسدا أنا غارقو هاي قذف كل كان أركان أركت ذا سوق تومياي بل أنقيه أو كلام غيرك عياي قرومها الدنيا ذا تقول دافع قمر خيه ضد كيجونا qalalaasahay badi qorsheeyaane qori caaradiisiyo hubkay qaayeen moodane qulqulatooyin iyo dagaal haatan waa la qaayibay ee qubuur noqotay caasimadii quruxda fiicnayd ee qabaal jabay dheh Soomaalidii qarada weyneedii qaha iyo colaad kama baxaan qoomamo iyo ciile qaaradaha adduunka aynu ku nahay dul qaxooti yahay qaxar iyo wareer bay wargeysyadu qorayaan qaar baa badaha lagu qubo qabar baloohayna qaar baa saxaraha qiimalay bahal quuteen qasaarooyin wixii dhacayna kuma quusanaysaane afarta qalooc kuma jirey qalad ogeysiin been la isku ma qanciyay run baa lagu qaboobaayay afar kalena waan qeexiye bal aan hore u sii qaado baarlamaankii dawladdii baan la hadlayaa baarlamaankii way iswada qallacay qaybsanaan jiray qodob kuma heshiin weli intay qaaqda ku hayaan qudraad samooye shacbiga uma qareemaan hadday iyagu qiimo leeyihiin dhiig ma qubteene qurgooyada ardaydii qaranka iyo dilalka qorshaysan qasaarihii shaamow bay wax ka qaadan lahaayeen amniga qayb waliba waxay ahayd inay quweeyaan qasdi xumo shabaab
ilaan waa qaatil iyo tuuge qolkay wataan bay ahayd inay fashil ku qaadaan inay soo qabqabtaan bay ahayd oo ay qisaasaane waxaan la hadlayaa markan dhalinyarada iyagu isgubaya oo dagaalka inay dagaalamaan iska daayay aaminay philosophiga iyo ideology-ga qeexaya haddii aad adiga naftaada iska goyso oo aad isqarxiso jannaad galaysaa ninka la leeyahay meel ay ku qoran tahayna kolley culumaha iga dambeyn doonta ma garanayo aniga dhalinyarada qiiraysanay qodob isweydiiya ninka qaraxa kuu dirahayo qalabka kuu dhiibi isaguba qaadan maayo wuu isqarinayaaye horta ha isqadimo isagu yuu adigu qoorta kuu suruni qiimaha rag waa siman yahay waa isku wada qayre sidee buu qalbiga kaaga xaday waa qisiyayaabe ragga waxaa la yidhaahdaa saddex waxood waa ka siman yahay magta iyo magaca iyo muuqa saddexdaasi waa ka siman yahay war midkee buu ku dheer yahay dhalinyarada qiiraysanaya qodob isweydiiya ninka qaraxa kuu dirayo qalabka kuu dhiibi isaguba qaadan maayo wuu isqarinayaaye horta ha isqadimayo adigu qoorta kuu surane qiimaha rag waa siman yahay waa isku wada qayray sidee buu qalbiga kaaga xaday waa qisiyayaabay haddii laba qof oo muslin ahi qow isaga siiso qaatilka iyo maqtuulkuba inuu wada qasaarayo aayado quraana iyo xadiis qeexayaa jiray isqaadqaad kibir quursi iyo isqaadqaadka iyo kibirka iyo quursiga iyo liidid waa qaab jahligu leeyahoo lagu qasaaraaye qorshaha 4.5 waa qaybi reer midahe qarbigaa wata ee waxaan nahay qoys walaalo ahe saxa qaladka oo toosa waad ila qalloocdaane intaad qaadir talada saarataan qarankii nooleeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonayaa inaynu dadkii meesha ku dhintay wada tacsiyeyno waxaan ka xunnahay dadkaa meesha ku geeriyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam wiilkiisii ibraahim markay naftu ka baxaysay intuu yimid baa wuxuu ku yidhi ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzin walaa naqulu ilaa maa yurdii rabbana wainaa lafiraaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun ishu way ilmaynaysaa qalbiguna wuu murgayaa oo wuu naxayaa dhimashada aad naga dhimanayso ibraahiima waan ka xunnahay laakiin wuxuusan ilaahay raalli ka ahan ku hadli mayno ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hadda waxa weeye dhallinyaradaas da'da yaryar aabbayowgood hooyooyinkood adeeradood abtiyadood dadkii meeshaa ku dhintay oo dhan waan ka xunnahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala inuu u naxariisto ehelkii ay ka tageen inuu alla qalbiga u dejiyo u qaboojiyo rabbi subxaana wa tacaala inta dhaawaca ah ilaahay subxaana wa tacaala inuu bogsiiyo ilaahay inuu u boogadhayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu bedel khayr qaba uu siiyo caafimaad degdegana alla uu siiyo subxaana wa tacaala calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad iyo aad ayay maaragtay tacsida soomaaliya waa iska socotaa gobol walbay taallaa tuulo walbay taallaa magaalo madaxday taallaa laakiin runtii mar allaali markii ma aragtay aad maqasho arday iyo hooyooyin iyo ilmo ayaa ma aragtay hal mare la qarxiyey si gaar ayaa hurdadu kaaga tegaysaa marka annaga oo dumarka soomaaliyeed oo dhan ah aanan ka mid ahay dadka wax ka soo abaabulay meeshaan aad iyo aad baan ugu farxay ani markuu caafi ii sheegay waxaan walaalo inta kastoon ku caawin karo waa kula qabanayaa waxaan tacsi u diraynaa dadka soomaaliyeed oo dhintay iyo kuwa dhaawacaba. A mother's cry. A mother's cry is universal. It is a language of pain, a dialect of sorrow, an accent of the misfortune, and a syllable of misery. In the last few threads of time, the world turned a blind eye while Somalia suffocated. Millions at a blink of starvation. The worst humanitarian crisis today, and the world responds with as much effort as a floating leaf. Such carelessness and negligence ought to be a crime against humanity. And they declare, we do not want a repeat of Black Hawk Down. And yet an innocent soul
whose only fault was being born at a chaotic time and place, dies. At one point, on every corner of the nation, a mother's cry, a fatal cry, at every minute. And that cry is only substituted with another mother who takes over the shift. It's a symphony of grief, a horrifying blend of melody, a horrifying blend of tones and melody. You would confess that a mother's cry is universal. It is a language of pain, a dialect of sorrow, an accent of the misfortune, and a syllable of misery. Our elders swear upon God, the creator of heaven and earth, that such a drought turned famine is a calamity from God. 21 years of disobedience, murder, torture, and corruption. A nation who is blessed with the oneness of language, religion, flag, and culture. My people, repent. Repent, my people, repent. Even the soil soaked red with years of blood is yielding, pleading, enough, my people, enough. Therefore, such death by hunger, although an alarming poisonous sight, it is a substitute for the sake of Mother Earth, from 2 decades worth of bloodshed to a dry, bloodless dry of delicate bones, a living corpse, alive and dead, dead and alive, mediated by a single breath. And I swear a mother's cry is universal. It is a language of pain, a dialect of sorrow, an accent of the misfortune, and a syllable of misery. And where there's a problem, there must be a solution. Find the solution within the dilemma, and why it existed in the first place will unfold. Drought, why? It is due to the absence of rain, but famine is a result of lack of preparation and poor infrastructure. Therefore, such a nation with a delicate foundation cannot hold. And in the words of W.B. Yeats, turning and turning in the widening girl, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. The center cannot hold. Mere anarchy is loose upon the world. And the solution lies upon the youth with a non-violent revolutionary weapon. A march, a protest, a walk, a rally, united and firm under one umbrella. When the rest of the world's footprints make history, Somalia, why are you in such a state of coma? Repent, my people, repent. Turn toward the Qibla as one and ask Allah, the Kings of Kings, for mercy. Then make a stand, inspire a movement. Because such a thing as a mother's cry, although universal, it is a terrible thing. It is a language of pain, a dialect of sorrow, an accent of the misfortune, and a syllable of misery. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalayaal, aad iyo aad tacsidaas geerida dadka Soomaalida ee ubaxeeniya ku timid ee dad Soomaali sheeganaya oo Muslim sheeganaya ay ku keeneen waa geeri inagu wada timid waa tacsiyad ina wada khusaysa meel dhow iyo meel dheer intaynu joognaba walaalayaal aad iyo aad taasu wayna inoo dhibtaa nin yiraahdo Sheekh Bashiir ayaa culimadoo dhan isu keenay markaasuu yiri magaalada Burco intuu bilaalaha ka shaah lagu cabo intuu meel dhigay buu yiri bal maanta oo dhan Ilaahay baryo bal bilaalaha jabiye intuu dib isu taagay ilaahayo qabo ilaahay bal anigu hadda eega buu anigu Ilaahay baan baryayaa Ilaahay bas uu aqbalay intuu bur weyn qaatay ayuu bow ka siiyay bilaalahi ya marka Soomaali haddaynu nahay mar dambe Ilaahayo bari oo waynaynu barinaa laakiin inaynu ficil la nimaadno ayaa loo baahan yahay marka waxaan idin leeyahay walaalayaal
geerida aynagu timid tii u dambeysay maaha milyan iyo nus Soomaaliya ayaa maalin walba sidaa loo dilaayay maalin walba ama Shaamo ha ahaato ama kii ku dhintay Saxraaga ku dhintay ha ahaato ama ku dhintay Kharza Yemen ku dhintay ha ahaato ama Dadab ku dhintay ha ahaato ama maartay inta u dhaxaysa ku dhintayba inta saasaa loo dhimanay marka meel hoo doonaysa hadal wax kama tiro ficil baa loo baahan واتهاي daawadayaal barnaamijka halka aad kala socotaan waa madasha wixii akhbaar ay dheeraad ah arrintan ku saabsan hadii noqon lahayd qoraal iyo hadii aad jeclaan lahayd inaad marka dib u daawato fiidiyowadii aad halkan daawateen ama khudbadihii iyo gabayadii aad daawateen oo dheer waxaad ka doonan kartaa madasha.com waanigoo jahweyn iyo bahda madasho idin leh sidaas iyo noli kulanta intaan hawada dib u kulmi doona barnaamij noocan oo kale ah